Hello kusoo dhawaada muuqaalkii saddexaad oo aan ka samaynayno basicska luqadda JavaScript. Waxaan kasoo samaynay muuqaal koowaad oo ga hadalnay variables, muuqaal labaad oo aan ga hadalnay conditions iyo operationadii kale, logical operators, comparison operators, isbarbardhigyo iyo waxaas. Maantana waa muuqaal saddexaad oo dib ugu laabanaya variables. Variables waxaan soo baranay in qaabadaha loo shaaciyo ay ka mid tahay. Tusaale ahaan oo kale haddaad rabtid inaad number meel ku kaydisid tiro caadi ah inaad dhihi kartid const numberka x baa bixinayna variable sida xisaabta oo kale waxaa dhahaynaa numberka tusaale ahaan oo kale 101 prime number tiro prime sidoo kale isla const baa adeegsan karaa haddaa magac caadi ah kaydinaysid tusaale ahaan waxaad dhihi kartaa const inaad dhahayd magac caadi ah magaca u bixi marka magacii caadiga maaha magacii loo bixin lahaa baad ka fikiraynaa tusaale ahaan iskaga bixiyo magaca koowaad first name markasta waxaan adeegsanayaa ingiriis laakiin Soomaali adeegsan kartaa first name waxaan dhihi kartaa marka magaca iska dhih Jama why not haddaba maanta haddaa u baahanahay inaad kaydiyo labada qaab oo soo aragnay kan waxaan u lahaa waan niri magaca u bixino kan anagoo adeegsanayna wixii aan soo barnay oo ahaa in mid kasta comment aad u samayn kartid oo aad dhihi kartid kan waxaa weeye number markaa kaydinaysid sida loo kaydiyo tiro ahaan caadi tiradii caadi u qoraysaa kuwad iyo ka qormaysid tanna waxa weeye markaad kaydinaysid waxaa loo yaqaan oo kusoo bixinay string markaad kaydinaysid kuwadkana geesaha ka maraysaa jama waa qoraysaa waxaan ku shaacinayna labada waa const letna waa ku shaacin karnay vart laga soo xigta waa ku shaacin karnay hadda maanta waxaan rabaa inaan qaabad kale wax u shaacin kartid ama xogta loo kaydin karana aan fiirino waa qaabada la yiraahdo array waxaan rabaa inaan tusaale ahaan oo kale koox arday ah baan rabaa inaan magacyadooda kaydiyo see uu kaydiyaa tusaale ahaan koox arday isku fasala baan rabaa inaan magacyadooda kaydiyo waxaan dhihi karaa inaan kulligood dhaho tusaale ahaan oo kale inaan dhaho op typingkayga wax ka xun ma jira oops waayo aan awood u horumarinaya markasta const tusaale ahaan inaan dhaho student one inaan dhaho student one magaciisu waxa weeye tusaale ahaan oo kale waa liban inaan dhaho haddana student two mar labaad const student two inaan dhaho tusaale ahaan oo kale Marian student 3 const student 3 const inaan dhaho tusaale ahaan oo kale x aan bixiyo wiilkii Elon Musk miya x aan iskaga bixiyo qof x lama jiro haddaba qaabada u kaydin karaa ardayda hadday bataan waxaan qorayaa sii badanaya markasta arday kasta gaarkiisana u shaaciyo const letna ku shaaci kara haddaba qaabad ka fiican baa jira maadaama kulligood waxa aan kaydinayn ay arday yihiin ay isla geli karaan dalladda arday la yiraahdo waxa u kaydin karaa inaan dhaho qaabad ah array maanta waxaa baranaya hadda waxa weeye array maxaa weeye array waxa weeye waa qaab aa u kaydin kadhid xog wada socota xog hal meel aa ugu kaydin kadhid yani hal meel tusaale waxaa dhahaya waxaan shaacinayaa variable la yiraahdo students ardayda isla tabtii kale const students waa arday kan hal arday maaha students arday baa u bixi karaa ingiriiska kabacdi waxaa qoraysaa square brackets waa khasban inaad qortid waa shardiga markaa qortid intaa qortid marka waxaa ku dhex qoranaysaa ardaydii tusaale ahaan kale ardayga koowaad wuxuu ahaa liban baa u bixinay liban ardayga labaad waxaa u bixinay marian ardayga saddexaadna waxaa u bixinay x baa u bixinay that's it waxaan ayaa waxaa la yidhaahdaa qaabadda u kaydsan const waa magacii iyo buunkii iyo xogtii oo ku dhex jirta square brackets maadaama waxaan ay string yihiin mid kasta waa string gaarkiisa waxaan string baa lahaa intaan string maadaama kulligood string yihiinna mid kasta wuxuu ku dhex jiraa fiiri gaarkiisa liibaan wuxuu ku dhex jiraa calaamadii koodka marian ku dhex jirtaa xna ku dhex jiraa haddaba maxaan samaynay array of strings maanta waa samaynay array of strings array ka kooban strings ka kooban waxaa samayn kartaa array of numbers waa samayn kartaa meesha halkan aan magacyada dhignaa waxaa dhigi kartaa lambaro tusaale ahaan imtixaan natiijadiisa oo kale halkan 92 81
boqolkiiba boqol lamara tira badan baa keeni kara adhan waxaa bixin karaa tusaale ahaan results natiijooyinka u baxay haddaba hal mar baan ardayda saa u kaydinay wabillahi tawfiiq meesha mid kasta gaarkiisa u qori lahayn waa hal mar nil hadhow haddaan rabaa inaan ardayda la xiriiro tusaale ahaan oo kale anigu hadhow waxaan dhigi karaa student 1 igu yeer markaas liam baa soo bixi lahaa student 2 u yeer maryam baa soo bixi lahaa student 3 u yeer x baa soo bixi lahaa haddaan dhaho student 3 fasalka dhan ka saar x baa meesha dhan ka bixi lahaa oo baabi'i lahaa delete lahaa tanna waa tabtii oo kale oo waxaan dhihi karaa markii array lala tacaamulayo sida aa xubnaheeda mid ka mida ugu yeertid waxaa la dhahaa in aad adeegsatid waxa loo yiraahdo index oo tusaale ahaan oo kale waxaa dhahaysaa student booska koowaad qofka fadhiya marka kasta inaad u yeertid waxaa dhahaysaa magacii koowaad magacii guud baa soo qaadanaysaa arrayga students buu ahaa waxaa dhahaysaa students waxaa qoranaysaa square brackets laftigeedii markaasaa dhahaysaa 0 hadda intaan waxaa weeye intaa macnaheeda waxaa weeye studentkii koowaad markii javascript iyo luqadaha kale la joogaba arrayda booskeeda koowaad array booskeeda koowaad waxaa fadhiya waxaa la yidhaahdaa index 0 booska koowaad baa magaciisa waxaa weeye index 0 haddaba index 0 maanta liam baa noo fadhiya ayagan everton macnada waxaa weeye meesha koowaad baa laga wadaa booska koowaad arraydu waxay ka bilaabantaa 0 1 2 array kasta waa sidaas 0 marka 0 ka bilaabanaysaa haddaba waxaa dhahnaa booska 0 ayaa fadhiya booska 0 waxaa fadhiya liban hadda waxaa dhihi karaa marka soo bandhig liban laftigiisa soo bandhig waxaa dhihi karaa tusaale ahaan oo kale console kan adeegsado caadiga ahaa log kaana best intii igu dheh waxaan yidhi waxaa shashada iisoo dhigtaa arrayda students la yidhaahdo qofka koowaad ee meesha fadhiya yuu isoo bandhigayaa liban shashada iisoo dhig haddaan dhaho qofka labaad iisoo dhig qofka koowaad waa kana fiiri qofkan waa qofka 0 qofka koowaad qofka labaad yaa wey marka wax waxaan dhihi karaa tusaale waxaa iisoo dhigtaa qofka koowaad iisoo dhig kan waa 0 kana waa 1 haddaba 1 waxa weeye maryam haddaan dhaho kana qofka saddexaad iisoo dhig meesha waxaa dhahnaya 3 oolin kan waa 0 kana waa 1 kana waa 2 saddex waxa loo ma jiro meesha kuma jiro arraygana dhan wuxuu ka kooban yahay ilaa booska labaad buu ku joogaa booska 0 booska koowaad booska labaad haddaba booska saddexaad haddaad dalabtid wuxuu ku dhahayaa undefined ma tacriifsana waxaa i weydiisay wax jira ma ahan imaad weydiin haddaba taa booska 0 noogu daa waa bedeli karaa arrayga qofka 0 wuxuu ahaa liban hadda waxaa dhihi karaa halkan intaan imaado waxaa dhihi karaa students laftigeeda u yeer students qofka 0 fadhiya haddaan sheegayaa marka calaamaddaa dhaho intaan waxa weeye qofka koowaad haddaan sheegaya mar haddaan sheegana qofka koowaad uu bedelmayaa oo ii fadhiya tusaale maanta waxaa bixinayaa tusaale ahaan kale beylu awal waxaa fadhiyay qofka 0 liban hadda beyla u bedelay markaa beyla u bedelay fiiri meeshii awal students 0 index 0 noo soo bandhigayay liban maanta wuxuu soo bandhigayaa beyli sababtoo ah waa laga saaray liban oo dhan meesha waa laga saaray inkastoo meeshaan ku qoran yahay amarkan computerka waa la siiyey laakiin amarkaana ka dambeeyey oo liban meeshii ka tuuray haddaa soo bandhigo arrayga dhan haddaa soo bandhigo console inta adeegsado log ando aan arrayga dhan soo bandhigo arrayga students la yidhahdo kulliga haddaa soo bandhigo yuu noqonayaa fiiri arraygii wuxuu noqday bayle maryan iyo x yani liban oo dhan wuu ka baxay sababtoo liban amarkaana saaray haddaba array waxaan kaloo isweydiin karnaa intaas waa inta ugu muhiimsan array xogta ugu muhiimsan taas waxaan isweydiin karnaa see loo soo helaa inta arday oo arrayga ku jirta arrayga intee arday oo ku jira students arrayga la yidhahdo intee arday haddaan tusaale waxaan u jeedin karaa maanta iskaga jeeda waa 3 arday laakiin amar kale aan adeegsan karaa jidho oo la yidhahdo students length amarka la yidhahdo length wuxuu siinayaa arrayga inta shay ee ku jirta dherarka arrayga haddaba student length haddaa soo bandhigo shada kusoo bandhigo console shashadan rabaa inaan kusoo bandhigo yani console log shashada waxaa iisoo dhigtaa eli students length dherarka groupka arrayga students la yidhahdo wuxuu iisoo bandhigay 3 taamina waxa weye 3 shay oo ku jira oo ah beyli halkan beyli noqotay maryan iyo x bilaata 3 ku jira beyli waa kan kaas hore iska daa si kale wax kale ahaan ka comment naga saar wuxuu ahaa beyli
Maryan iyo x saddexdaa ku dheh 3 buu c 3 gaasuna c arrayga daar baan qof ku daro see ugu daraya qof laba qaab baa ugu dari kartaa qaabab badan baa ugu dari kartaa laakiin waxyaabaha sameyn waxaa ka mid ah inaad arrayga dhammaadkiisa qof ku darto haddaba beelaha naga saar liban waxa bedelin inaad arrayga gadaal ooga dartid iyo inaad horay ooga dartid haddaba arrayga see horay looga daraa arrayga see qof horay looga daraa halka ii fiiri markaan length waa 3 si isku bedelo fiirso marka qof bedel ku daro waxaan dhahayaa students magaciisa soo qaadanaya students do bush haddaan dhaho qof ku dar weeye qofka ku dar lahaa sheeg marka magaciisa tusaale ahaan kale waxaa ku darayaa saaqo baa ku darayaa hadda muxuu noqday students markaan wuxuu noqday 4 qof baa ku jira arrayga la yiraahdo students waxaa ku jira 4 qof sababta marka 3 waxaa ku jirtay hadda waxaa ku darnay saaqo la yiraahdo saddex waxaa ku jira maanta 4 length 4 buu noqday haddaa dhaho students oo dhan soo bandhig fiiri maanta all students oo dhan waxaa ku jira marka hore soo bandhigna liban maryan iyo x haddaa dhaho maanta soo bandhig fiiri gadaal markaa ku daray ka bacdi markaan amarka bush siiyey ka bacdi haddaa dhaho soo bandhig suu noqday fiiri soo bandhig baa mar labaad soo bandhig maanta yuu noqday fiiri liban maryan x saaqo tiyaro muxuu ahaa intaana ku darin soo bandhigii kan waxa weeye intaana ku darin soo bandhigiisa liban maryan x haddana muxuu noqday liban maryan x saaqo okay waxaan rabaa inaan sameeyo horay oga daro horay baan rabaa inaan qof oga daro hadda gadaal baa saaqo oga daro liiska bilowga rabaa inaan qof ku daro isla magaci baan adeegsanaya students do maanta maxaan dhahayaa and shift markaasaa waxaa sheegaya hadda qofka ku darayo waxaa ku daraya qof la yidhahdo y qof la yidhahdo y ku daraya marka hore fiiri yuu ahaa liban maryan x kabacdi maxaa sameeyey qofaa horay oga daray qofna gadaal baa oga daray markaasaa waxaa yidhi soo bandhig marka labada amar samaysa kabacdi soo bandhig wuu soo bandhigay wuxuu yidhi y horay baa looga daray sababta aan shift adeegsana aan shift macnaheedu horay oga daray haddana gadaal buu wuxuu oga daray saaqo wuxuu noqday marka y liban maryan x saaqo lengthkin intuu noqday fiiri dhererki intuu noqday 5 buu noqday sababta hadda 5 qof ku jirta 5 buu kan asigaas badinaya markasta qof ku dartid halkaas isbedelaysaa 4 5 6 markaas ku dartid haddaan rabaa inaan qof ka saaro see uga saaraya haddaan rabaa inaan qof ka saaro see uga saaraya waxaan dhahayaa students baan dhahayaa kow kabacdi amar waxaa adeegsanaya la yidhaahdo splice badan waxaa sheegayaa meesha aan qof ka saarayo qofka meeshaan ka saaraya waa xaggee tusaale ahaan oo kale waxaa rabaa inaan booska koowaad qof ka saaro yacni arrayga wuxuu ka bilaabnaa ugu booska 0 booska koowaad baa rabaa inaan qof ka saaro waa booska koowaad intee qof baa saaraya booska koowaad ilaa intee ku joojiya waxaan dhahayaa booska koowaad qof ka saar waxaana saartaa tusaale ahaan oo kale hal qof saar halkan fiiri intaana saarin markooda aan soo bandhigo hal mar aan soo bandhigo intaana saarin waxaan rabaa labada jeer baan soo bandhigo intaana saarin saanu ahaa wuxuu ahaa y liban maryan x saaqo waa saaray splice baan idhi qof saar qofka booska koowaad fadhiya saar hal qofna ha ahaado kabacdina soo bandhig baa idhi markuu saaray uu soo bandhigay wixiisay noqdeen fiiri y liban wuu baxa meesha ka baxa sababta booskooda asaga fadhiya y wax fadhiya booska 0 liban asagaa meesha fadhiya uu ka baxay yay noqotay y maryan x saaqo boos baan ka saar soo hadda dhaho booska 0 qof fadhiya saar booska 0 qof fadhiya waa hal qof oo booska 0 fadhiya y buu ka bilaabay fiiri booska 0 y da fadhida y-dii waa booska 0 fadhida la saaro waxaa laga bilaaba markaan y liban bay ahayd liban baa laga bilaaba y dhan waa la tuur sababta splice waxaa weeye haddaa markaa siisid splice laba variable keliyana siisid ama laba argument keliyana aad siisid wuxuu saarayaa dadka halkaa fadhiya qofka 0 fadhiya hal qof saar haddaa dhaho qofka 0 fadhiya ka bilow laakiin waxaa saaraa tusaale ahaan oo kale waxaa saartaa 3 qof saar 3 qof saar fiiri markii saanu ahaa y liban maryan x saaqo 3 qof saar baa qofka 0 ka bilow yuu saarayaa wuxuu saarayaa 0 ka bilaabaya kan saar kana saar kana saar saddexdaas saar x ka bilow x iyo saaqo kaliya students dhan kusoo haray waa splice array inta ugu muhiimsan taqriiban oo basic ah waa intaa waxaa jira methods kale tiro badan hadda waxaan soo aragnay kaliya methodka la yidhahdo length waa aragnay oo dhererkeeda ku sheegay waxaa aragnay methodka la yidhahdo push and shift baan aragnay splice baan aragnay inta basicsan waa intaas waxaa kaloo samayn kadhaa array khasab maaha inay kaydiso
string noocaana ama tirooyin caadi inay kaydiso khasab maaha waxay kaydin kadhaa xataa array kale maanta waxaan sameynaa tusaale ahaan oo kale array la yidhaahdo tusaale ahaan oo kale students why not ama families const family arraygan tusaale waxay ka kooban tahay dad la yidhaahdo tusaale ahaan oo kale other g tusaale ahaan oo kale qof la yidhaahdo nuur iyo waxay ka kooban tahay arraygu intaa way ka koobnaan kadhaa inta hadda soo aragnay waxay kaloo ka koobnaan kadhaa arraydu array kale saan oo kale yacni square bracketskii inaa square brackets kaloo kasii hooseeya aad samaysid oo tusaale dhahdid waxaan meeshan ku kaydinaya laba qof oo mataana oo gaar kula socda sababta gaar iskula xiriirayeen maanta waxa weeye mataana waxay doonaan inoo karaa yani adiga markaa muhiimadda waxaa sameynaysid ku xiranta tusaale ahaan oo kale Saciid baa ku jira iyo qof kale oo la yiraahdo Saciid tusaale ahaan tusaale kaga soo dhaca family aan u bixiyo array marka yaa ku jira waxaa ku jira cadar qof la yiraahdo qof jiil iyo qof nuur la yiraahdo iyo laba si gaar ah isku sii xiran sababta isku xireen lama yaqaan oo la yiraahdo Saciid iyo Saciid يعني tan waxa weeye array ay ku sii dhex jiraan array kale ku sii dhex jiraan tan wuxuu ahaa array of strings string kaliya ku dhex jira liibaan maryan cadar iyo waxyaabo kala duwan gelinay array of numbers oo sameyn karnaa tan maxaa weeye laakiin waa array ay ku jiraan array kale haddaba qofkan waan naqaanaa sida loola xiriiro oo waxaa dhahaysaa dhow family tusaale ahaan haddii qofkaan soo bandhigo console caadi u dhaho console.log qofkaas rabana soo bandhigo kaas waxaa dhahayaa console.log family qofka zero la yiraahdo soo bandhig baa dhahaya wuu soo bandhigay qofka zero waxa la yiraahdo cadar baa la yiraahdaa wuu soo bandhigay qofkan see u soo bandhigaa marka qofkan see u soo bandhigaa qofka g la yiraahdo taas rabana soo bandhiga one baa ku qoraya kana waxa ku qoraya two laakiin qofkan gudaha ku sii jira see u soo bandhigaya qofkan waxa dhahayaa qofka zero waa halkan qofka kow waa halkan qofka laba waa halkan taqriiban labadan waxay fadhiyaan booska qofka saddex bay isla fadhiyaan haddaba waxaa qoraya qofka booska saddex yaa ii soo bandhigmaya labadiiba Saciid iyo Saciid ka war haddaa Saciid kaliya rabo tan laftigeedu soo array kale ma aha Saciid wuxuu fadhiyaa arrayda gudaha ah booskeeda zero fadhiya haddaba waxaan dhahayaa arrayda weyn booskeeda saddexaad tag waa Saciid iyo Saciid arrayda ku jiraan intaa laftigeeda waxaa tagtaa haddana booskeeda zero yacni laba jeer baa index adeegsanaya indexkan iyo indexkan maanta yuu soo bandhigaya Saciid kaliya soo bandhigaya inta waxaa weeye inta marka inta sameyso waxay helaysaa Saciid iyo Saciid marka inta yar sii raacaysidna waxay helaysaa Saciid hadda booskan raacaysid tusaale ahaan 0 1 aad u bedeshidna waxay helaysaa ilaa Saciid baa 1 0 ah Saciidna waa 1 markaan Saciid aad helaysaa hadda ka waran 2 ka dhigo waan dhaafiyo 2 hadda sameysid undefined ku daraya sababta ah arraydan dhexe boos saddexaad male oo booska boos labaad male waa ka wada oo booska 0 iyo booska 1 هذا وبالله التوفيق بيسكس array javascript array waa intaas intaan ku kulmayno muuqaalkan muuqaalka xoga waxaana kaga tegayaa sidaas. Assalaamu calaykum nabadgelyo.